alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu shalay dhammaynay baabkii baabulikhlaas ku saabsanaa ayaynu axaadiistiisii carabka marinay xadiiska inoogu dembeeyey waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah ikhlaasku inuu markaa fadligiisu wen yahay oo sha'nigiisu wen yahay baa laga qaadanaya waayo saddexda nin ee camalka saalixa ku tawasulayay saddexda mid walba ikhlaaska waa tilmaamayey oo camalka markuu sheego daahirulcamal keliya ilaahay kuma bariyeyn ee wuxuu lahaa allaahumma in kuntu facaltu dalika ibtigaa'a wajhik waana sida loogu keenay baabka mid waliba ikhlaaskii waa sheegayey ibtigaa'a wajhik waxay tilmaamaysaa ikhlaaskii bay sheegaysa marka sha'niga ikhlaasku inuu weyn yahay waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay dacawaadka inuu ajiibo dacwada camalka saalixee wanaagsan loogu tawasulana allah inuu aqbalo marka horena allah wuxuu ballan qaaday baryada la baryaayo inuu ajiibaayo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wuxuu idhi aniga ibarya haddaa i baridaan waa idinka aqbalayaa waa idinka ajiibayaa ayuu allah yidhi mas'alada aynu tilmaanno tawasul bilacmaali asaalixa mawduuc ballaadhan baa jiro oo ku saabsan altawasul in tawasul lala yimaado kelmad inaynu tawasulkaa ka nidhaahno ayay ila muuqatay innagoo hadalka aynaan badinayn mawduucuna uu iska ballaadhan yahay tawasulka waxa mashruuca in ilaahay magacyadiisa ama sifaadkiisa lagu tawasulo oo rabbi lagu baryaa waa mashruuc nusuustuna waa ku soo aroortay qur'aan iyo xadiisba allah magacyadiisa allah lagu baryayaa waa tawasul la is-amray walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waa amar shayga sharcigu amrayna ama wuxuu noqdaa waajib buu noqdaa waana sida asalka ah marna wuxuu noqdaa sunna ayuu noqdaa labadaba waxaa ka dhexeeya inuu mashruuc yahay oo uu yahay shay ma'muurun bihi ima amra iijaabin aw amra istixbaab shay sharcan la amray inuu yahay oo nusuusta laynagu amray aayadda qur'aankaaba ku timi amarkeedu marka mashruuc inuu yahay laba iskuma khilaafsanaa adillo kale waa jirtaa oo marka asmaada ilaahay in lagu tawasulaayo aad iyo aad bay u badan tahay laakiin aayadda amarka sheegaysaynu ku kaaftoomayna in sifaadka ilaahay lagu tawasulo oo rabbi lagu baryo iyaduna waa jirtaayoo adillada waa ku soo aroortay oo axaadiista iyo aayaadka mid walba waa ku sugan tahay wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika alsaalixiin biraxmatika sifada ilaahay baa lagu baryayaa allah lagu weydiisanayaa oo lagu baryayaa yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astagiif sifada ilaahay ee sifatu raxma allah lagu baryayaa allaahumma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratik yacnii cilmigaagaan kugu khayr weydiisanayaayo sida khayrka badan inaad ii doortaan kugu baryayaayo cilmigaaga kuu weydiisanaya wa astaqdiruka biqudratik marka qudrada iyo cilmigu waa tawasul sifaadka ilaahay lagu tawasulaayo nooca saddexaad in acmaasha saalixa allah lagu baryo aayaadka qur'aankana waa ku timi axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ku timi aayaadka waxaa ka mid a rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbana faghfir lana dunuubana wakafir canna sayi'aatina waa baryo ilaahay lagu baryaayo oo iimaanka lagu weydiisanayo oo lagu baryayo sababtay u sheegeen maxay tahay in marka iimaanka loogu yeedhay oo iimaankii ay la yimaadeen oo dabeedna looga sababeeyey rabbanaa faghfir lana inta fa la geshay waa tawasul camalka saalixa allah lagu baryayo camalka saalixa allah lagu baryayaana waa iimaanka weeyi oo iimaankii de camal waa yahay ya wa tilka aljannatu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun iimaankii kuma jira miya maya waa ku jira ya waxallo wuxuu markaa wanaagsanaayo ruuxu la yimi baa waxaa laga tilmaamayaa bima kuntum tacmaluun marka camalkii saalixu allah lagu baryay weeye waatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal wuxuu u baabaystay
cidda tidhi iimaanku isagaaba camal ah markaasuu nusuusaha qaarkood soo aroorinayaa oo aayaat iyo axaadiis bale ayuu keenaya rabbanaa inanaa aamanna bima anzalta waattabacna alrasuula faktubna maca ashaahidiin yacnii waxa weeye waa tawasul camalka saalixa lagu tawasulayo allah lagu baryayo ka afraad wuxuu yahay waa in cid saalixa ama salaax lagu tuhmaayo ama la og yahayba inuu saalix yahay in loo tago la yidhahdo ilaahay noo bari kaasina waxa weeye waa bannaan yahay shaki male axaadiisna waa ku soo aroortay mutacadidii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka ka khudbadaynaya maalin jumce ayaa nin reer miyu imanaya markaasuu odhanayaa xoolihii halaagsame ee ilaahay noo bariyo roob nooga bari markaasaa nebigu gacmaha sare u taagayaa allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina wa fii riwaaya allahuma aghithna allahuma aghithna allahuma aghithna marka nooca afraad ee tawasulku wuxuu yahay waa in cid saalixa ama salaax lagu tuhmaayo inta loo tago la yidhaahdo markaa allah noo bari waa taa nebiga la weydiisanaya ducada afartaa noocee tawasulku waa sugan yahay bacdu ahlicilmi waxay ku daraan nooc kale in xaaladda qofku ku sugan yahay dacfiga iyo taagdarrada iyo ashyaada noocaasa inuu allah ku baryo rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya waxaa jira haddaba nooc kale oo tawasulkaa lagu daro oo dadka qaarkood ay ku daraan oo ku saabsan daatada ama jaaha ama qadarka iyo sharafta in lagu weydiisto shakhsi leeyahay yacni cid daatadooda iyo xaqooda in lagu baryayo oo la yidhaahdo bixaqi nabiyina muxamed sala allahu alayh wasalam baan kugu baryayaa ama bixaqi shaykh fulaan ama bijaahi markaa shaykh fulaan ama bijaahi fulaan in saasoo kale markaa lagu baryo taana tawasulka dadka qaarkood baa geliya laakiin taasi waa mid laysku khilaafsan yahay oo layslama oggola tawasullada noocyada hore nusuusteeduna waa caddahay khilaafna kama taagna taa bixaqi fulaan ama bixaqi nabiyi lagu baryaayo iyo bijaahi fulaan iyo markaa waxaa bidaati nabiyi sala allahu alayh wasalam wax daliiloo saxiixoo ku soo arooray ma jiro daliil saxiixa oo sariixa oo ku yimi ma jiro waxa loo cuskadaa waa laba shay weeye ama waxaan sugnayn ama mawduuca ama daciifa in loo deliishado dee taasina daliil maaha ama wax ixtimaal inuu sida aqbali karo ay is yidhaahdeen waxa weeye daliil bay idinku noqon kartaa waxyaalaha markaa la soo arooriyey ee baabkaa loo keenay waxaa ka mid a in la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aadam baa ku tawasulay oo nebi aadam tawasulkiisii uu ku tawasulay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo weli wujuudka aan iman oo jasadkiisii aan la abuurin ayuu markaa ku tawasulo ilaahay ku baryay yidhahdeen xadiis saa lagu soo warinayo ayaa la keenay oo xaakim mustadraga ku soo wariyey laakiin xadiiska caynkaasi ma sugna ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa mawduuc waa been abuur bay yidhahdeen culammada tidhi waa been abuurna waxaa ka mida alimaamu adahabi baa ka mid a oo wuxuu sheegay inuu mawduuc yahay culamo badanna waxay yidhahdeen waa daciif oo bacdu ahlicilmi baa wakhtiyada qaarkood xadiiska mawduuca dhicda inaynay sii taxqiijin oo markaa waxa weeye inuu mawduuc yahay aan tasriixin oo ay yidhaahdaan waa daciif waayo mawduucu waa qayb ka mida daciifkii daciifkuna waa ka guda ballaadhan yahay mawduuca waa ka guda ballaadhan yahay marka mawduucu waa qayb ka mida daciifka ahlucilmi kalena saas leeg bay sheegeen inuu mawduuc yahay ama baatil yahay ay tilmaameen waxaa ka mid a tawasaluu bijaahi fa inna jaahi cinda allahi cadiim xadiiska caynkaasi asal ma leh saas aawoodee culamada qaarkood waxay soo naqliyeen itifaaq inaanu xadiiskii nebiga ahayn oo muxadisiintoo dhammi warkaa isku waafaqsan yihiin xadiiska hore aan ku yaro noqdo xaakim baa isagu wuxuu yidhi isagu gaarnimadiisa xadiisku waxa weeye waa saxiixulisnaad sanadkiisu waa saxiix cid kaleo culammada muxadisiinta ka midoo saxiixisay lama hayo subki baa isagu wuxuu yidhi waa saxiix oo xaakim baa saxiixiyey marka tasxiixa xaakim inuu ictimaaday unbaa ka muuqatee isagu marka waxa weeye taxqiiqu ku sameeyey oo xadiiska markaa sixadiisu ugu caddaatay inaynay jirin ayaa hadalkiisu tilmaamaya marka culammadii muxadisiintae hore cid markaa saxiixisay saasaan loo hayn weliba xaakimna wuxuu sheegay cabdiraxmaan ibnu zayd
inuu aabbihii ka wariyo axaadiis mawduuca axaadiis been abuur ah misana xadiiskanuu cabdiraxmaan ibnu zayd soo wariyo aabbihii uu ka warinaayuu saxiixiyo o yidhi waa saxiixulisnaad mawdic kalena wuxuu ku sheegay markuu cabdiraxmaan u tarjamaynayey inuu yidhi aabbihii wuxuu ka wariyey axaadiisa mawduuca marka labadiisa hadal isaguna saasay isaga hor imanayaan oo u tanaaqudayaan waayo isaga laftiisaa sheegay cabdiraxmaan ibnu zayd inuu aabbihii axaadiis mawduuca ka wariyo xadiiskanna cabdiraxmaan ibnu zayd baa aabbihii ka warinaya marka inuu saxiixiyaa oo saxiixulisnaad yidhaahdaa ma suuragal aha isagoo sheegay inuu cabdiraxmaan ibnu zayd aabbihii axaadiis mawduuca ka wariyo kanna uu cabdiraxmaan ibnu zayd aabbihii ka wariyey tacaaradaa fatasaaqataa labadiisa hadal way isla dhaceen haddii la eego la tadqiiqiyana saxiixu da wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo hadalkan markaa uu saxiixa yidhi baa qalad ah bishahaadati nafsi markhaati kaca naftiisa uu ku markhaati kacay daraaddeed ayay waxay noqonaysaa dee inaanu sax noqon karin waxaa ka mida allahuma innii as'aluka bixaqi asaa'iliina calayk xadiis ku saabsan marka loo soo socdo salaadda in sidaa lagu ducaysto kaasna waa daciifa ma sugna cadiyat alcawfi baa sanadkiisa ku jira waxaana nawowi iyo haysami iyo khayrkoodba ay yidhaahdeen waa muttafaqun calaa dacfihi inuu cadiyat alcawfi daciif yahay waa laysku waafaqsan yahay marka ninkaa dacfigiisa laysku waafaqsan yahay baa soo wariyey waa midda labaadee hadduu sugnaan lahaa daatooyin inaan lagu tawasulayn bay aqbali kartaa oo uu daahir ku yahay waayo bixaqi saa'iliina calayk saa'iliinta allah baryayaa xaqa ay leeyihiin maxay tahay ee allah markaa isugu waajibiye u ballanqaaday xaqaasi waa ijaabo waa aqbalaad wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga i barya astajib lakum waa idinka aqbalayaa haddaa i baridaan marka xaqa allah ballanqaaday oo cidda baryaysa u ballanqaaday waa inuu ka ajiibaayo taas weeye ijaabada uu allah aqbalayaana oo uu ajiibayaana waa ficlun min afcaalih sifaadkiisa ay ka mid tahay marka waxay ka dhigan tahay hadduuba sugnaan lahaa ma sugno waa daciife in sifadii ilaahay allah lagu baryaayo ayuu noqon lahaa calaa kulli xaal ashyaa markaa badan ay u deliishadeen oo sidaasoo aan sugnayn baa jira waxaa markaa meesha yaalla xadiis marka waxa weeye xadiisulacmaa xadiis la yidhahdo xadiiska xadiisulacmaa la yidhaahdaa waxa uu ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi indhali'i wuxuu uhi yaa rasuula allahi ilaahay ii bari yacnii inuu indhaha ii bixiyo allah ii bari markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in shi'ta dacawtu wa in shi'ta sabarta wa huwa khayrun lak haddaad doonto waan kuu baryayaa oo ilaahay baan ku weydiinayaa inuu indhaha kuu bixiyo haddaad doontana waad sabraysaa inaad sabirtaana kuu khayr badan mar labaad buu nebiga ku celiyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi yaa rasuula allahi maya ilaahay bari markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo weysayso oo waxa weeye markaa tuko oo dabeedna markaa ducadanna akhri allahuma innii atawajahu ilayka binabiyika muxamed ila aakhiri alxadiis ninkii baa soo weysaystay yacni labadii ragcadood buu tukaday dabeedna markaa waxa weeye ducadii buu ku ducaystay nebigu u laqimay ducaddana waxaa ku jirtay washafichu fiya ilaahu shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam ii aqbal ninkii baa waxa weeye indhuhu u baxeen xadiiska caynkaasa culammada qaarkood sixadiisa waxbay ka sheegeen oo sida waxa weeye sahsawaani siyaanatulinsaanka iyo sida waxa weeye markaa saaxibu tathiir alictiqaad yacni bacdu ahlicilmi waxbay ka tilmaameen oo ka sheegeen oo tirmidi baa yidhi abi jacfar oo sanadka xadiiska ku sugani khidmi ma aha markaasay waxay yidhahdeen haddaanu khidmi ahayn dee waa raazi hadduu yahayna waa daciif tirmidi waa xadiiska waa sugo waa saxiixiyey isagoo khidmina u diiday abi jacfar ama waxay yidhahdeen waa majhuul oo lama garanayo laakiin siday culammada qaarkood ay tilmaameen waxay tahay xadiisku inuu saxiixiyo oo haabit yahay raajixuna uu yahay inuu markaa raawigan abi jacfar inuu yahay abu jacfar alkhidmi inuu yahay ayuu saxiixu yahay marka waxa weeye sida sawaabkee saxani waa inuu xadiisku asal ahaan waa inuu sugan yahay weeye laakiin waxaa la ysku hayaa ma tawasul ducada nebiga sala allahu alayh wasalam lagu tawasulayo miyaa mise waa tawasul
lagu tawasulaayo jaaha nebiga iyo qadarka nebiga iyo xaqa nebiga. xadiiskan haddaba waxaa la ysku hayaa ma noociiba nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa lagu tawasulayey oo rabbi loogu dhowaanayey inuu nebigu kuu duceeyo, mise waxa weeye waa tawasul jaahiisa iyo xaqiisa lagu tawasulayo. sida saxiixii waxay tahay tawasulkan inuu yahay tawasul ducada nebiga sala allahu alayh wasalam lagu tawasulayo oo rabbi lagu baryayo. taa waxaa caddaynaya kow waa midda koowaadee ninku wuxuu u yimi inuu nebigu u duceeyo calayhi salaatu wasalaam buu u yimi oo wuxuu ihi udcu allaha lii, allah ii bari. waa qodob. qaar baa yidhi waxa weeye duca ayuu nebigu barayo, yacni waxa weeye muraadka looga jeeda waa inuu duca baray. dee ninku duca in la baro uma iman. wuxuu yidhi markaa ilaahay ii bari. nebiguna waa u ballanqaaday hadduu doorto oo wuxuu yidhi in shi'ta dacawtu wa in shi'ta sabarta wa huwa khayrun lak. wuxuu u ballanqaaday hadduu doono inuu u ducaynaayo ayuu nebigu u ballanqaaday. ballanqaadkiisana nebigu waa oofiyaa. waa khayru man yuwaffii wacdah. ninkii waa ku adkaysto wuxuu uhi maya ilaahay bari. marka qatcan wuxuu nebigu ballanqaaday inuu baajiyo oo markaa guub yeelaa dee ma dhacayso, ee kollayba waa sameeyey baryadii ilaa waa u ballanqaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa shay labaadoo caddaynaya. shayga saddexaad wuxuu yahay aakhirka xadiiska waxaa ku sugan inuu nebigu u laqimay inuu yidhaahdo allahuma shafichu fiya, ilaahu shafaacada nebiga ii aqbal. shafaacaduna waa maxay? waa duco, waa baryo. allahumma shafichu fiya bimacnaa iqbal shafaacatahu fii sha'nii. shafaacada nebiga ee sha'nigayga ku saabsan ilaahu ii aqbal. taasina waxay caddaynaysaa in waxa weeye ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey inay dhacday. marka shay kaloo camal saalix oo uu ku ladhay ayaa jirta oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yacni waxaad samaysaa inaad marka camalkaas saalixa la timaado, deedna aad tidhahdo ilahu shafaacada nebiga ii aqbal. allahuma innii atawajahu ilayka binabiyika muxamed nabiy araxma. yacni waxa weeye ducada caynkaas ah ee uu ku ducaysanayo ee loo laqimay waa caawin marka waxa weeye ducadii nebiga lasii caawinayo oo marka waxa weeye allah laga baryaayo in allah aqbalo. haddaba dadka qaar ba waxay ku arkeen xadiiska inay ku jirto yaa muxamed, markaasaa waxay yahay nebiga xataa loo yeedhaya. nidaaga inaan la diidayn ma ku tusinaysa? dee nidaagana nidaa nebiga la baryaya ma ahayn. xadiiskana kuma sugnaa wax uu nebiga weydiistay. waxay culammadu yidhahdeen waa istixdaar, yacni markaa nebiga qalbiga uu ku soo xaadirinayo. sida markaynu tukanayno atixiyaadkeennu akhrinayno ay ugu jirto assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh. oo ay khitaabka culammadu yidhaahdeen hadal nebiga lala hadlaya maahae waxaa looga jeedaa istixdaar ayaa looga jeedaa. noocaas weeye siday ahlucilmigu markaa tilmaameen. waxaa kala duwan in nebigii wax la weydiisanayo iyo inuu wax la weydiisanayn. yacni halka nebigii in wax la weydiistay kuma sugnaa. saas aawoodee intaa dhammaanteed waxay caddaynaysaa ducaa nebigu u duceeyey oo shafaaco ah oo isaguna leeyahay markaa ii aqbal, oo nebigu yidhi markaa sidaa ku soo duceey inuu ilaahay aqbalo shafaacada, in markaa ay jirto. marka waa tawasul ducada yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa lagu tawasulayo. saas aawadeed saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam markuu noolaa nebigu fii daari dunya ku noolaa, ducada nebiga waa ku tawasuli jireenoo markay dhibaatooyin ku dhacaan nebigay u iman jireen. sida xadiiskiiba uu sheegayo allahuma inna kunna natawassalu ilayka binabiyina muxammadin fatasqiina wa inna natawassalu ilayka bicammi nabiyina. markii abaartii darani ay dhacday, cumar bnu khataab baa wuxuu yidhi ilaahayow waxaannu kugu tawasuli jirray nebigaagii muxamed ahaa sala allahu alayh wasalam, markaasaad na waraabin jirtay. tawasulkaa wuxuu u jeedaa nebigaa noo ducayn jiray, sida maalintaaba uu duceeyey isagoo mimbarka ku sugan uu u duceeyey, siduu marar kale u duceeyo salaatul istisqaa intuu tujiyey u duceeyey, sida ducooyin kale markaysaga wakhtiyada qaarkood oo dhibaatooyinka ugu duceeyey, sida yowma badrin iyo waxa weeye markaa wakhtiyo kaleba. xataa cidda dhibaato gaaray haysataa nebiga si ay ugu iman jirtay, sida ninka idhooli ugu yimi, sidii gabadhii suuxi jirtay ay ugu timi, ay tidhi yaa rasuula allahi ilaahay ii bari, oo uu yidhi haddaad doontana waan kuu baryayaa ilaahay. gabadh suuxi jirtay ayuu nebigu ku odhanayaa, haddii kalena waad sabraysaa, haddaad sabirtana jannaad leedahay.
markaasay tidhi waa iska sabrayaayoo jannadaan dooranayaaye ilaahay waxaad iga baridaa markaan yacnii suuxo cawradaa iga faydantay inaynay cawradu iga faydmin ilaahay ii bari suuxitaanka waa iskaga sabraya mar haddii janno lagu helayey markaasaa nebigu ilaahay u baryey inaan cawradeedu faydmin gabadhii waxay ahaan jirtay mid suuxda oo si kasta hadday u suuxdo cawradeedu ayna muuqan saasay ahaan jirtay mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa ha ahaato marka waxa weeye shay caamo ummaddu ay doonayso oo dhibaato caama ha ahaato ama dhibaato gaaroo qof haysata ha ahaatee nebiga ducadiisa in lagu tawasulaa saasay u jiri jirtay wa innaa natawassalu ilayka bicammi nabiyina waxaannu hadda kugu tawasulaynaa buu yidhi markaa nebigaaga adeerkii oo cabbaasaannu kugu tawasulaynaa xadiiskaa bukhaari baa soo wariyey waxaana ku sugan in markii nebigu dhintay dabadeed ay saxaabadii ka leexdeen inay markaa nebiga ku tawasulaan oo ay u weecdeen in nebiga adeerkii oo cabbaasa ay ku tawasulaan haddii jaaha lagu tawasulayo qadarka iyo xaqa iyo jaaha looga jeedo jaaha nebigu markaa ma nuqsaamin nebigana jaah u kordha mooyaane waxba ka dhinmi maayaan jaahiisuna markaa waxa ilaahay agtiisa waa weyn yahay mar walbana qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo fadligiisu waa siyaadaysaa marka hadday tahay jaaha iyo qadarka iyo fadliga in lagu tawasulaayo dee saxaabadii kamay weecdeen nebiga inay ku tawasulaan oo cabbaas umay weecdeen ya qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu marka cumar uga weecday wuxuu caddaynayey marka waxa weeye mafduulka in lagu tawasulaa inay bannaan tahay yacni marka waxa weye iyadoo afdalkii in lagu tawasulo ay suuragal tahay laakiin waa dacwa cidi markay dhibaata haysato dhibaatadu ay aad u daran tahay dee waxay doonaan cidiba cidday markaa ka mudan tahay inay ku tawasulaan cabbaasna isagoo saxaabi faadilay ah ayaa haddana waxaa u raacdaa inuu waxa weeye qaraabadii nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam oo weliba markaa waxaweye nebiga calayhi salaatu wasalaam uu aabbihii la walaal yahay amaa calimta anna camma arajuli sinwa abiihi marka maadaama sharaftaa kale u raacday ayaa isaga lagu tawasulay tawasulka cabbaas lagu tawasulaya ma wuxuu ahaa tawasul biljaah mise wuxuu ahaa tawasul biducaa maya wuxuu ahaa tawasul biducaa buu ahaa ducada in lagu tawasulaayo maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya riwaaya saxiixa lagu soo wariyey oo zubayr ibnu bakkaar wakhayruhu soo warinayaan xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga ku soo aroorinaayo oo tilmaamaya naskii uu ku duceeyeyba cabbaas keenaya oo la yidhi cabbaas ducee oo cabbaas uu duceeyey allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyik wahadii aydina ilayka bidunuub wanawaasina ilayka bitawba fasqina naska ducada uu ku duceeyey saas yadaa bay ahayd bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen sanadkeedu waa saxiix marka cabbaas tawasulka lagu tawasulaya maadaamuu ahaa tawasul biducaa waxay caddaynaysaa kii nebiga lagu tawasulayana waa inagii soo caddayna inu ahaa tawasul biducaa tawasul biljaahi iyo bixaq inaynay ahayn marnaba labada nooc midnaba dee waxa weeye saasay u caddahay sidaas ayay u caddahay marka waxa weeye calaa kulli xaal saasaan xuja ugu jirin xadiis alacmaa waxaa jira haddaba laba riwaayo daciif ah oo marka waxa weeye mid ziyaado weeye xadiiska lagu daray oo tilmaamaya hadday xaaja kuu sugantahay sidaa ku ducayso laakiin ziyaadadaasi waa ziyaada shaadda oo waa daciifa ma sugna waa midda labaade riwaayo kalea la soo wariyo wakhtigii cusmaan ibnu cafaan cusmaan ibnu xunayf inuu u laqimay nin indhala oo cusmaan ku soo noqnoqonayey inuu u laqimay ducadii inuu u laqimay oo yidhi sidan ku ducayso riwaayada sidaa ku soo aroortay saxiixa ma ahe waa daciifa gaayatu maa fii amrina waa in marka waxa haddayba sugnaan lahayd waa in saxaabiga isaga ijtihaadkiisa sida ula muuqato oo arrinaan saxaabadii kale samayn inuu sameeyey laakiin ma sugnaba waxaynu leenahay taa tanazulan ayaynu u leenahay waxay qaarkood yidhaahdeen tabaraani baa xadiiskaas saxiixiyey oo wuxuu yidhi xadiiskaa marka uu sheegay walxadiisu saxiixun ziyaadadaa markuu soo wariyey tilmaamaysa in wakhtigii cusmaan loo laqimaynin oo deedna sidii ku ducaystay dabeedna marka waxa weye indhihi ay u baxeen waxaa la odhanayaa waa midda koowaad ee xadiiskaasi ducadii nebigu u laqimay inuu ninkii indhoolaha yidhaahdo ducadii oo dhammaystiran ma wada odhanoo looma laqimin ninkan waayo qadar baa laga tegey qadarka laga tegay waa maxay allaahumma shaficu fiya oo maadaama marka waxawe ninkan markaa wakhtiga dambe imanaya nebigu markaa ducadiisii aanu haysanin
oo inuu ilaahay indhaha u saaro oo indhaha u bixiyo aanu nebigu ugu ducayn dee waxay u muuqatay marka waxa weeye in markaa meesha aynay soo gelayn intaa lagu duceeyo ilaahu ducada nebiga ii aqbal inuu yidhaahdo saas aawadeed wax shay ducadii ku sugnayd oo nebigu laqimay oo aanu markan aanu samayn sanad ahaanna ma sugno waxa weeye waxay noqonaysaa riwaayadaasi inay daciifo tahay tabaraani markuu leeyahay xadiisku waa saxiix wuxuu u jeedaa asalka xadiisku u jeeda bidaliil inuu soo sheegay shucba inuu soo wariyey riwaayada sidaan sheegayana shucba ma soo warina asalka xadiiska ayuu soo wariyey marka maadaama uu sheegay inuu xadiiskan shucba soo wariyey oo uu yidhi wal xadiisu saxiixun wuxuu ka hadlayaa asalka xadiiskee shucba soo wariyey uu isagu sheegay taasuu ka hadlaya taas ayuu ka hadlaya markii waxa weeye cumar markuu lahaa waxa weeye cabbaas baan ku tawasulaynaa haddii waxa weeye isagu markaa uu ka leexday sidii markaa fiicnayd afdalka ahayd dee saxaabada kale baraarujin lahaa saxaabadii kalena waa u taqriiriyeen marka waxaa ka soo baxaysa yacni wakhtigan marka waxa weeye nebigii la oofsaday oo nolol barsakhiya uu nool yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo noloshii adduunye uu ka tegey inaan tawasulkii yacni isaga lagu tawasulaayey inaanu markaa jiraynin ee waxa lagu tawasulayaa ay noqonayso yacni waxa weeye cid saalixiina in markaa ducadooda lagu tawasulo inay noqonayso ila haddii jaahiis iyo qadarkiisa lagu tawasulaayo marka waxa weeye isma beddelin jaahi nebigu wax ku kordha mooyaane waxna kama dhicin marar kalena ma dhicin saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inay ku tawasuleen oo yidhaahdeen markaa jaaha nebigaanu kugu weydiisanayna cibaaro sariixana lamaba hayaba ya waynay soo noqnoqotay qisada noocaas oo kaliyey oo wakhtigii mucaawiye ayaa abaartii oo kale dhacday yaziid ibnu aswad aljurashi ayuu u yeedho uu yidhi marka waxa weye isagaynu ku tawasulanaa ilahay noo bari markaasuu isaguna duceeyey ya xadiiskana culammadu waxay ku soo saareen bacdu ahlicilmi dalaa'ilu nubuwahay ku dareen oo ku soo saareen sida bayhaqi wakhayruhu ay ku soo saareen marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaasaan waxba ugu jirin culammaduna waxay sheegeen tawasulka jaaha lagu tawasulayaa inuu yahay bidcatun biitifaaq sida sheekh taqiyaddiinba marka uu tilmaamay culamo kalena ay ku raaceen bidca inay tahay layskuna waafaqsan yahay bidca waxay u noqotay waa shay markaa ducadii waa cibaado ducadii maadaamay cibaado tahay waxa allah lagu baryayaa waa inay tahay wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam marka bijaahi fulaan mar haddaan nebigii lagala kulmin oo diinku nebi maxamed la yimi aanu ku jirin waxaa laga qaadanayaa dee inay bidco tahay iyaakum wa muxdathaati alumuur fa inna kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar yacni saas yada weeye sidaas weeye markaa sidaasaan waxba ugu jirin dadka qaar waxay doonaan inay isku mid ka dhigaan istiqaasada la gargaar weydiisanayo amwaadda dhimatay iyo tawasulkan jaaha lagu tawasulayo bijaahi fulaan laakiin labadu waa kala duwan yihiin midna waa shirki oo in amwaadda la baryo iyaga la tuugo oo la yidhaahdo sheekh hebelow ii gargaar kurbada iga qaad dhibaatada iga qaad waxaan isii yaa cid dhimatay inaad baridaa oo aad gargaar weydiisataa oo isaga aad baridaa waxay noqonaysaa waxa weeye shirki bay noqonaysaa cumuumaadkaynay gelaysaa adducaa huwa alcibaada waman adallu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibadatihim kaafiriin baryadaad baryaysana ku maqli maayaan kaamana warqabaan qaarad kale markaa nin ku aasan qaarad kale ku aasan ayaa marka ay u yeedhanayaan iyagoo boqolaal markaysa markaa ama kumaan kun kilomitir isagoo u jira baa loo yeedhanayaa markaase waxay ka aaminsan inuu og yahay maqlaayo ajiibaayo kurbadana ka qaadi karo ya saasay aaminsan yihin dee waa qayb oo cilmulghaybkii oo loo sugaya weeye samci khaariqa ah oo loo sugaya weeye adduunyada markuu jooga intuu wax ka maqli jiray qudro loo sugaayo dhib iyo dheef inuu awoodaayo weeye allah wuxuu ina amray isaga inaanu barinu ina amray marka sidaas aawadeed taa iyo tani saasayna isugu mid u ahayn ahlucilmigii horena waxay sheegeen baryada amwaadda la baryayaa inay gaalnimo tahay xataa ibnu taymiya intaanu dhalan ka hor ay ahlucilmiga qaarkood sheegeen abulwafaa ibnu caqiil baa ka mid a culamada sheegtay oo markuu sheegayo uu leeyahay khitaabu lmawta yacni waxa weeye markaa dadka dhintay lala hadlaayo o laleeyahay kurbada iga fayd oo markaa waxaa isii la leeyahay wuxuu odhanaya wahum cindii kufaarun bihadihi alawdaac abulwafaa ibnu caqiilna wuxuu dhintay 513 ayuu dhintay ghazaali bay isku wakhti ahaayeen ibnu jawsi baa talbiisu ibliiska hadalkiisa ku soo naqlinaya
qarnigii lixaad bay markaa waxay noolaayeen awalkiisi buu dhintay markaa abulwafaa ibnu caqiil marka waxa weeye ahlucilmigu horay u sheegi jireen yacni markaa arrinka noocaasi markaa inaanu bannaanayn oo nooc shirkiga uu yahay saasay u sheegi jireen sidaas ayay u sheegi jireen subki ayaa wuxuu yidhi tawasulka markaa lagu baryaayo jaaha nebiga sala allahu alayh wasalam iyo xaqa nebiga waxaa lagu kulansanaa inay bannaan tahay ilaa ibnu taymiya yimi markuu ibnu taymiya yimi ayuu la yimi laguma baryi karo warka noocaas wax jira ma aha waayo bixaqi fulaan inaan lagu baryi karin xaqa hebel inaan lagu baryi karin dee abu xaniifaaba sheegay oo 150kii dhintay abu xaniifa sheegay kitaab kastoo fiqi ah oo madhabulxanafiya u qoran buu ku yaallaa durulmukhtaarka ama raddulmukhtaarka eeg quduuriga eeg yacni kutubta kale xanafiye eeg bacdi waxay ka soo naqliyeen 36 kitaab oo xanafiya qortay waxaynay qaarkood leeyihiin sida quduuriguba u odhanayo kutubta muctamadku ka mid yahay markaa ay xanafiya leedahay quduurina wuxuu ka mid ahaa shuyuukhdii khatiib albaqhdaadi qarnigii waxa weeye shanaad awalkiisii buu noolaa ilaa khatiib wuxuu dhintay 463 ayuu dhintay mashaaikhdii khatiib albaqhdaadi baanu ka mid ahaa wuxuu odhanayaa ma bannaana in la yidhaahdo as'aluka bixaqi fulaan liannahu laa xaqa lilmakhluuqi cala alkhaaliq waayo makhluuqa xaq kuma leh khaaliqa tacliilka saasuu odhanaya abu xaniifa waxaa laga soo naqliyey oo kutubta xanafiya o dhan bay ka soo naqlinaysaa laa yanbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bihi laa yanbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bihi marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada ku saabsan tawasulka xaqa iyo jaaha ku saabsan sidaasaa waxa weeye kutubta fiqiga ah qaarkood sidaasay u diidayaan horena loo diidi jiray wax ibnu taymiya diidmadeeda la yimina maaha xadiis baa jira bukhaarigu soo wariyey oo ay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ay ku tidhi waan xanuunsanayaa oo madaxa ay xanuunaya dabeedna markaa waxa weeye uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yacnii haddii aad dhiman lahayd anigoo nool ilaahay baan dembidhaaf kaaga baryi lahaa low kaana daaka wa ana xayun fa astakfira lak riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan oo aan saxiixulbukhaari ku sugnayn faghasaltuki wa haya'tuki wastakfartu laki yacni marka waxa weeye taasay ku darayaan mawdicu shaahid waxay tahay hadday dhici lahayd inaad dhimato aniga oo nool may markaa dee dhacdo marka inaad iga horrayso aad iga horraan dhimataa may dhacdo tamani bay u fasireen culammaduye oo fa astakfira lak dabeedna ilahay dembidhaaf aan kaaga baryo xadiisku waa fii saxiix albukhaari ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen oo suyuudi laftiisu ka mid yahay in lowdani litamani tahay sidaas aawadeed fa astakfira waa la nasbinaya laa khayru suyuudi wuxuu ku odhanayaa xaawiga ayuu ku odhanayaa juska 2 shuraaxda qaarkoodna waa sheegeen marka fa astakfira waa la nasbinayaayo waa tamaniga jawaabteedii tamanigana waxaa loo isticmaalaa dee shay waxa weeye markaa dhicitaankiisu ama aan suuragal ahayn ama aanu badnayn inay dhacdo dee istikfaarku hadduu dhacaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ducada uu u ducaynaya hadday dhacayso marka uu dhintiyo markuu nool yahay mid walba dee waxa weeye markaa ma tamaniyeen markaa inay ka horrayso uu isagu markaa u duceeyo waxay ku tusinaysaa waxa weeye markan kale duco gaaro oo markaysaga ugu ducaynayaa inaynay markaa jirayn saasaa markaa waxa laga qaadanaya ama xadiiska la soo wariyey oo sheegaaya acmaasha ummaddeeda lay bandhigaayo dabeedna markaa haddii aan shar ka helo ilaahay baan markaa u baryaa aan u duceeyaa sixadiisa waa laysku hayaa culamada qaar waa daciifinayaan waa midda kale haddiiba marka ay sugnaato duco caama ummadda loo ducaynayo shakhsi ducada loogu ducaynayo oo mataalibtiiyo danaha kala duwan loogu ducaynayaa dee inaynay jirayn baad garanaysaa inaynay jirayn ayaad garanaysaa baabu tawba waxaynu bilaabaynaa baabka labaad qaala imaamu nawawi raximah llah qaala alculamaa'u altawbatu waajibatun min kulli denbin alimaamu nawowi waxau yidhi qaala alculamaa'u altawbatu waajibatun min kulli denbin towbaddu waa waajib in laga toobad keeno min kulli dembin dembi kasta laga toobad keenaa waa waajib weeye fain kaanat ilmacsiyatu hadday tahay macsida ama dembigu bayna alcabdi wa bayna allahi tacaala addoonkiiyo allah mid u dhaxaysa hadday tahay laa tatacallaqu bixaqi aadamiyin oo xaq aadami aan ku tacalluqin ee xaq ilaahay uun meel lagaga dhacay ama lagu dembaabay falaha alaasatu shuruud waxay leedahay 3 shardi bay leedahay axaduhaa 3 shardi midkood an yuqlica waa inuu ka fuqo oo ka tago can ilmacsiyati dembigii waa shardiga koowaad dembigii waa inuu ka fuqaa oo markuu toobad keenayo dembigii aanu ku dhex jirin ee ka dhex baxaa
والثاني شرطiga labaad an yandama cala ficliha waa inuu markaa ka tiraanyoodaa ka qoomamoodaa samaynta macsida ama dembiga uu la yimi oo isku cilkaambiya ka tiraanyoodaa isku cilkaambiya nadaamo والثالث shardiga saddexaad an yaczima waa inuu go'aansadaa an laa yacuuda ilayha abada inaanu weligii macsidaa dib ugu noqonin waa inuu go'aansadaa oo niyo go'aan ah oo casmi ah la yimaadaa saddexdaa shartaa loo shardiya fain fuqida haddii la waayo axadu alaaati saddexdaa shardi midkood haddii la waayo lam tasixa towbatuhu ma asaxayso toobaddiisu saddexdaa shardi mid ka mida haddii la waayo toobaddiisu asixi mayso waa in saddexda shardi dhammaystiran yihiin oo saddexdaba lala wada yimaadaa wa in kaanat ilmacsiyatu hadday tahay macsida ama dembigu tatacallaqu biaadamiyin mid ku tacalluqda xaq aadami fa shuruuduha arbaca shardiyadeedu waxay noqonayaan afar shardi bay noqonayaan haadihi alaaatu saddexdan shardi aynu soo sheegnay wa an yabra'a iyo inuu ka beri noqdo min xaqi saaxibiha waa inuu ka beri noqdaa min xaqi saaxibiha cidda marka waxa weeye u saaxiibka ah dembigaasi ku tacalluqaayo xaqeedii waa inuu ka beri noqdaa oo bimacnaa xaqeedii yani waxa weeye iska saaraa oo siduu uga beri noqonayaa isaga saaraya xaqaas oo uga dhex baxaya fain kaanat maalan aw naxwahu hadday tahay maal hadday tahay aw naxwahu ama wax maal la mida hadday tahay raddahu ilayhi xoolihii waa u celinaya hadduu ka cafiyana waa la midoo waxay ka dhigantahay dee inuu celiyey hadday maal tahay ama wax la mida waa u celinaya wa in kaanat hadday tahay xadda qadfin xaddulqadfi hadday tahay wa naxwahu iyo waxa la midkaa inuu zina ku masabiday oo yidhi waa zinaystay oo kale oo zina ku ganay wa naxwahu iyo wax la mida makkanahu minhu waa tamkiininaya wuxuu awoodsiinayaa in xadkii laga jaro aw talaba cafwahu ama wuxuu weydiisanayaa inuu ka cafiyo wa in kaanat ghiibatan hadday xan tahayna istaxallahu minhaa waa ka xalaashanayaayo inuu cafiyo weydiisanaya inuu cafiyo ayuu weydiisanaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamay toobaddu waa waajib oo dee allah baa amro oo aayaadka waa ka inoo keenaayo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun marka toobaddu waa waajiba weeye waana waajiba bilijmac ijmac bay ku waajibtay dembiyada waaweyn laga toobad keenaa waa waajib bilijmac sakaa'irta laftooda in laga toobad keeno weeyaan oo dembiyada sakaa'irtaa laga toobad keeno iyaday soo aroortay dembiyada sakaa'irtaa in lagu dhaafo haddii dembiyada kabaa'irtaa laga dheeraado in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waxa laydinka reebee laydin diiday kuwooda waaweyn haddaad ka dheeraataan dembiyada kale laydinka dhaafaya oo laydinka daadinaya marka dembigu hadduu markaa xaq aadami aanu ku saabsanayn waxaa loo shardiyaa saddex shardi saddexda shardiya uu sheikhu inoo qoray mid wuxuu ku tacalluqaa wakhtiga la joogo xaalka midna wuxuu ku tacalluqaa mustaqbalka midna wuxuu ku tacalluqaa maadigii mid xaalkuu ku tacalluqaayo an yuqlica cani ilmacsiyati markaa la joogo waa inuu dembigii ka fuqaa oo ka dhex baxaa markaa la joogo waa inuu dembigii ka baxaa shardi weeye waa shardi ku tacalluqa wakhtiga la joogo wa an yandama calaa ficliha waa shardi ku tacalluqa wixii tegey oo yacni samaynta uu dembigaa wakhtiga hore sameeyey waa inuu ka nadaamoodaa oo isku ciilkaambiyaa oo waxa weeye ka qoomamoodaa qoomamo dhab ah xadiisna waxaa ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiraanyoodaa waa tawba weeye shardiga saddexaad wuxuu ku tacalluqaa mustaqbalka oo waa in la go'aansado dembiga inaan dib loogu noqonayn an yaczima an laa yacuuda ilayha abada shardi maaha inaanu dembigii dib ugu laabmin ee waxa shardiya inuu go'aansado niyo dhab ah inaanu dib ugu noqon doonin laba shardi oo kale ahlucilmiga qaarkood ku dareen shardi waxa weeye waa shartulikhlaas oo camal kastoo wanaagsan loo shardiyo waa in ilaahay dartii ay ka tahay toobadkeenkaasi oo liajli illah u toobadkeenayaa ee istusnimo iyo dadka agtooda sharaf aad ku yeelatid iyo ha kugu ammaanaan muraadku waa inaanu ahayn waa inuu yahay toobaddaasi liajli illaah ikhlaas waa inay ka tahay baabulikhlaasna waa soo marra shardiga markaa kale ee markaa lagu daray wuxuu yahay ee shan ku noqonaya xilliga uu toobad keenayaa wakhti toobaddu furantahay waa inay tahay oo naftu dhuunta aynay soo gaadhin qorraxduna galbeed aynay ka soo bixin ee xilliga la toobad keenaya hadday tahay wakhti aan toobadda la aqbalayn oo naftu dhuunta soo gaadhay dee toobaddii laga aqbali maayo in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir wuu inoo keeni doonaaye insha allah naftu hadday dhuunta soo gaadho toobaddii qofkaa waa ka xidhanta waayo waa xaalatu ibdiraar waa towbatu ibdiraar laa towbatu ikhtiyaar shayga labaad waxa weeye waa in marka qorraxdu galbeed ayna ka soo bixin taasi waa mid caama
marka labada arrin caynkaa ku saabsan toobadda aan lagu aqbalayn midna waxa weeye waa xaal khaas ah oo ruux ku gaara midna waa arrin caam ah oo dadkoo dhan ka wada dhexeeya labadaa midnaba waynayna jirin labadaa wixii aan ahayn albaabka toobaddu waa furan yihi shantaa shardi baa towbadda loo shardiyaa haddii xaq ilaahay ay ku saabsan tahay mid ka mida shantaa haddii la waayo towbaddaasi waxay noqonaysaa hayru saxiixa midaan ansixin saasay noqonaysaa haddii xaq aadami soo galo intaa loo shardiyeyba waa loo shardinayaa waxaa raacaya waa inuu ciddaa xaqeedii u celiyaa wax la celin kara hadduu yahay ama ka xalaashadaa oo waxa weeye xaqii wuxuu ku saabsanaan karaa dhiig wuxuu ku saabsanaan karaa xoolo wuxuu ku saabsanaan karaa xaddulqadfi hadduu dhiiggii iyo xoolihii marka waxa weeye iska celiyo amaba laga cafiyo waa ka dhacaya laakiin xaqii ilaahay baa ku hadhaya waa inuu towbaddii shuruudihii kalena la yimaadaa hadday tahay xaddulqadfi waa inuu marka waxa weeye xadkii in laga jaro waa inuu markaa tamkiiniyaayo marka waxa weeyaan u oggolaadaa hadduu iska cafiyo isagu aanu gaadhsiinin yacni waa halkeeda xaakimkii aanu gaadhsiinin hadduu yidhahdo niyo qadfi aan kuu sameeyey xadkiina in laga kaa jaro ayaan markaa doonaya hadduu isagu markaa cafiyo dee xaqiisi waa ka dhacaya xaggii ilaahayna waa ka toobad keeni karaa oo aynu ka toobad keenaa hadduu yahay marka waxa weeye xan hadduu yahay waa ka xalaashanaya waayo xaq la celinaya xantii ma jiro wuxuu ku xantay inuu u sheego uu yidhahdo icafi aw cafiyo waxay isweydiiyaan culammadu marka uu cafiska doonaayo tafsiilka wuxuu sheegay ama wuxuu sameeyey cafinta miyaa loo shardinayaa mise ijmaalan waa la ysaga cafin karaa taa culammadu waa isku khilaafsan yihiin laba qowl bayna kala yihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin ilaa uu tafsiiliyo caddeeyo waxa uu sameeyey cafiska ijmaalkii asixi maayo culamada qaarna waxay leeyihin waa asaxaya oo waxay isweydiiyaan hal ilcafwu ibraa'un aw tamliik waa qaacido marka hore culammadu ku kala duwan yihiin cafwigu ma tamliik iyo mulkisiinba mise waa ibraa' iyo beriyeelis labada waa iyama laba qowl baa iskaga jira calaa kulli xaal xuquuqda caynkaasa inuu iska celiyo waxa u raacaysa toobadda shuruudihii kale inuu la yimaado ayaa u raacaysa dadka qaar waxay moodaan hadday xaq aadmi ku saabsan tahay bes isaga inaad ka xalaashato mooyaane wax kalaba ynan saarayn oo le hebela waa ku xamaneed ee nacafi towbadda shuruuddii ma dhammayn shanta shardiya horeba waa loo shardinayaa shardigan lixaadna ziyaaday la tahay xaq aadmi hadday ku saabsan tahay oo cafinta ah ama celinta ah marka wixii haddii la celin karayo ama cafinta ah saamaxadda la saamaxayaa inta kale markay kuu raacday marka waxaa ku taraysaaye laakiin haddii kale dembigii kaama wada dhicin waayo dee xaq ilaahayna waa ku jiraayo dee allah waa xarrimay oo dembi allahna waad ka gashay markaad xaq aadmi ku xadgudubtay oo macsuum ahoo dhowran xaq makhluuqna waad ku xadgudubtay marka toobadda shuruuddeedu waa inay dhammaystirantaa wa yajibu an yatuuba min jamiici dunuub waxaa waajibaya an yatuuba inuu ka toobad keeno min jamiici dunuubi dembiyadoo dhan inuu ka toobad keenaa waa waajib fain taaba min bacdiha hadduu ka toobad keeno dembiyada qaarkood ka toobad keeno oo qaarna aanu ka toobad keenin saxat towbatuhu way asaxaysaa toobaddiisu intuu ka toobad keenay toobaddiisu waa asaxaysaa cinda ahli lxaqi yacni culammada ahluxaqa agtooda waa asaxaysaa qadarkuu ka toobad keenay oo min daalika dembigaas ah wa baqiya calayhi albaaqi waxaa ku hadhaya intii ku hadhsanayd ee dembiyada ahaydna way ku hadhaysaayo dhaladiisay sidii u saaran tahay waa mas'ale culammadu ay isweydiiyaan ma dhici kartaa qofku inuu dembiyada qaar ka toobad keeno qaarna aanu ka toobad keenin qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya ma dhici karta yidhahdeen waayo toobaddu waa noqosho allah loo noqonayo muctasiladii baa saa qaba waxay yidhahdeen dhammaan dembiyada waa in mar laga wada toobad keenaa haddii qayb laga toobad keeno o aan qayb laga toobad keenin inta laga toobad keenina toobaddeeda asix mayso kullu dunuub jamiicu dunuub waa in laga toobad keenaa bay yidhahdeen laakiin saxdu waxay tahay waa in marka waxa weeye intuu ka toobad keenay toobaddeedu inay u asaxayso intaanu ka toobad keenina inay ku hadhsanaanayso daliil sheegaya inay sharti tahay dembiyada mar in laga wada toobad keeno haddii qaar laga toobad keeni waayo kuwa kale toobaddu aynay asaxayn lama hayo waa saas weeye laakiin waxaa waajiba marka hore in laga wada toobad keenaa waa waajib laakiin shartay isu tahay ma aha dembiyadoo dhan in laga wada toobad keenaa waa waajib waa shay laakiin shartay isu yihiin dhammaan in laga toobad keenaa yadu sax ma aha waqad tadaaharat dalaa'ilu alkitaabi waasunnati wa ijmaacu alummati cala wujuubi altawba waqad tadaaharat waa isxoojisay oo waa isquwaysay dalaa'ilu lkitaabi kitaabka qur'aanka ah daliiladiisu aayaadkiisu iyo wasunnati daliilada sunnadu wa ijmaacu alummati iyo ummadda iswaafaqeedu intuba waxay isku xoojiyeen oo isku raaceen calaa wujuubi tawbati towbaddu inay waajib tahay
oo qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaaca intaba waajib bay ku tahay. qaala allahu tacaala, allah wuxuu yidhi wa tuubuu toobadkeenoo u soo noqda ila allaahi xagga allah u toobadkeenoo u soo noqda jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin ayuha almu'minuuna mu'miniinow kuwiinan mu'miniinta ahow lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan allah u toobadkeena. waa amar, waalamru yaqtadi alwujuub. qaacidaduna waxay tahay amarku wuxuu keensadaa waajibnimuu keensadaa, marka waxaa laga qaadanaya inay waajib tahay in la toobad keenaa. wa qaala tacaala, allah waxau yidhi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh. istakfiruu dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista, uma tuubuu ilayh, intaa dabadeedna xagga allaah u soo noqda u toobad keena. iyaduna waa amar. wa qaala tacaala, allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwiinna rumeeyeyow tuubuu ila allaahi xagga allah u toobadkeena towbatan towbad u toobadkeena towbaddaasoo nasuuxan saafi oo badhaxla. towbad badhaxla oo saafi ah allah u toobadkeena. waa awaamir aayaadkaasi towbaddii ay amrayaan. xadiiska 14 wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul. abu hurayra waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayo wallaahi allah baan ku dhaartaye innii la astakfirullaha anigu ilaahay baan dembidhaaf weydiistaa, anigu allah baan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayh xagga allah baan u toobad keenaa filyowmi maalinta gudaheeda akara min 70 mara, halka maalin gudaheed 70 goor in ka badan 70 mar in ka badan baan allah dembidhaaf weydiistaa xaggiisana u toobad keenaa. rawaahu lbukhaariyu, xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey. xadiiska 15 وعن الأغر بن يسار للمزني رضي الله عنه waxaa markaa muslim ka soo wariyey saxaabiga alaqari la odhan jiray qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allahi xagga allah u toobad keena wastakfiruuh allah dembidhaaf weydiista fa innii atuubu fi lyowmi 100 mara, anigu waxaway maalinta gudaheeda waxaan allah u toobad keenaa xagga allah u noqdaa 100 mar ama 100 goor. rawaahu muslim, xadiiskana muslim baa soo wariyey. labada xadiisba waxay tilmaamayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam istikfaar iyo towbad inuu la iman jiray maalin kasta, oo qofku marka waxa weeye waa inuu mar kastaba yacni markaa towbadda iyo istikfaarka la yimaadaa. waata markaa laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin, waxaa waa bariisataan idinkoo toobad keenaya, waxaana habeensataan ama galabaysataan idinkoo toobad keenaya. bimacnaa waxa weeye subaxnimo kasta iyo habeen kasta waa inaad rabbi u toobad keentaa si markaad waxa weeye geeridu kuu timaadaba adigoo taa'ib oo toobad keenay si ay kugu timaaddo. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celcelin jiray astakfiru allaha wa atuubu ilayh, astakfiru allaha wa atuubu ilayh. waxaa markaa wuxuu tilmaamayaa abu hurayra maalintii 70 goor in ka badan inuu markaa waxa weeye nebigu odhan jiray yacni marka astakfiru allaha wa atuubu ilayh. nebigaaba sheegay, nebiguna waa ku dhaartay inuu saas sameeyo. akara min 70 mara, isma diidayaan filyowmi 100 mara iyo akara min 70 mara, waayo 100ka goor 70 goor waa ka badan yihiin. marka waxay noqonaysaa 100 goor buu ilaahay maalin kastaba yacni toobad weydiisan jiray. waa qadarka ugu yar, maalmaha qaarkood waa ka badin jiray. taa waxaa caddaynaya saxaabadu inay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood hal majlisoo uu nebigu fadhiyo baanu 100 goor uga tirin jirnay astakfiru allaha wa atuubu ilayh. hadda waa hal majlis oo u fadhiyo baan u tirin jirnay 100 goor astakfiru allaha wa atuubu ilayh. marka waxay noqonaysaa markuu ugu yar yahu intan ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray una toobad keeni jiray. marka istikfaarka iyo toobadda waa in aad iyo aad loo farabadsadaa, aad iyo aad loogu dadaalaa. xadiiska 16 وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. بخاري ومسلم waxay ka soo wariyeen أبي حمزة وأنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay kii u shaqayn jiray ahaaday. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiino yimi sannadii labaad baa anas hooyadii baa nebiga u geysay calayhi salaatu wasalaam nebiga. dabeedna waxay tihi inankan ha kuu shaqeeyo. dabeedna sidii buu ugu shaqayn jiray. xadiis waxaa ku soo aroortay inuu yidhi khadamtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam 10 siniin, 10 sano nebiga u shaqaynayey. riwaayo kale xadiis kalena waxaa ku soo aroortay
inuu yidhi waxaa nebiga u shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam 9 sano labaduba waa sugan yihiin ismana diidayaanoo macnuhu waxay noqonayaan 9 sano iyo dhowr bilood buu u shaqaynayey marka marna waxaa la sameeyey tarxulkasri marna waxaa la sameeyey jabrulkasri yacani luqada carbeed waxaa lagu yaqaannaa in wakhtiyada qaarkood jajabka la tuuro oo inta buuraha bes la sheego taa waxaa la yidhaahdaa tarxulkasri baa la yidhaahdaa inta jajabkaabaa la tuurayaa sannaddii sarrifantay dhowr bilood maadaamuu la shaqaynayo dhowr biloodna aanuu la shaqaynayn intii marka waxa weye jajabka ahayd baa la tuuray markan kalena waa la buuragareeyo jabrulkasri baa la yidhahdaa inta markaa jajabka ah baa layska buuragareeyaa oo iyo 10kii bilo ka dhiman yihiin ayaa waxaa la yidhi 10 sanay ahayd marna waa jabrulkasri marna waa tarxulkasri nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan ayuu ka weeleeyo muksiriintu ka mid yahay axaadiistoodu tirada badan yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey allahumma aksir maalahu wa waladahu wa baarik fiihima ilaahow xoolihiisa badi ubadkiisana badi una barakee saas aawadeed wuxuu noqday ansaarta ragga ugu xoolaha badan buu ka mid ahaaday barakada ducada nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi dadka kale halka beertoodu hal mar ay dhasho sannadkii aniga 2 goor bay ii dhashaa buu idhi aniga 2 goor ayay ii dhashaa buuhi ubadkiisuna aad bay u bateen ubad aad u fara badan buu dhalay bacdi waxay yidhahdeen markay sheegayaan 120 carruura oo awlaadu sulbiya buu dhalay waxaa laga yaabaa inta saqiirtay inayna ku darin waxaa laga sheegay inuu yidhi intii aan xajaaj markaa aanu iman ka hor ubadkayga 100 in ka badan baan aasay marka ubadkiisuna aad buu u farabatay wuxuu kaloo nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam inuu cimrigiisa ilaahay dheereeyo wa atil xayaatahu ducada inta hore waxay ku sugan tahay saxiixiyada laakiin qadarkaa dambe bukhaari baa adabulmufradka ku soo wariyey culammada qaarkoodna waa quweynayaan culamada quweysayna waxaa ka mid ah ashaykhu alalbani raximahullah qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lallahu afraxu bitowbati cabdihi min axadikum ay wallaahi allah baan ku dhaartay laamku waa muwati'a lilqasame oo dhaar jawaabteed bay gogol dhigaysaaye lallaahu allah baa afraxu kaga farxid badan bitowbati cabdihi addoonkiisu toobadkeenka uu toobad keenaayo waa masdaru mudaafun lifaacilihi towbaddu addoonkay ka dhacaysaa min axadikum ay min faraxi axadikum midkiin faraxiisa ilaahay ayaa ka farax badan saqata calaa baciirih xaal axadkiinnaasi saqada uu ku dhacay waxaa loo jeedaa uu helay calaa baciirihi tuliddiisii ayuu helay baciir waxaa caan ah in la yidhaahdo awrka laakiin luqada carbeed macnahay ku asalka ahayd waxay ahayd baciir in tulid la yidhaahdo oo awrkii hasha mid walba ay ku dhacayso laakiin curfigii dambe wuxuu ku caanbaxay baciir in la yidhaahdo awrka saqata calaa baciirih xaal axadkiinnaasi saqada marka uu ku turunturooday bimacnaa uu helay calaa baciirihi tuliddiisii buu helay wuxuu tuliddiisa helay waqad adallahu walxaal qad adallahu uu lumiyey bimacnaa uu dayacay fii ardi falaatin ama fii ardin falaatin labadaba waa loo dabdiyey yacni bilidaafati iyo bitanwiini wuxuu ku dayacay ku lumiyey bimacnaa ku dayacay oo ay kaga luntay fii ardi falaatin dhul markaa lama degaan ah oo cidlo ah ama fii ardin falaatin oo falaadka ardiga laga sifaynaayo fii ardin dhul gudihii ayuu markaa ku dayacay oo ay kaga luntay dhulkaasoo falaatin iska ballaadhan oo waasican cidi degganayn oo lama degaan ah muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bimacnaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay agsarka culammadu hadday yidhahdaan muttafaqun calayhi waxay uga jeedaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin saaxibu muntaqa alakhbaar waa almajd bnu taymiya weeyaane kitaabka xadiiska muntaqa alakhbaar la yidhaahdo sheikha allifay waa ibnu taymiye awowgii weeyaane abulbarakaat almajd bnu taymiya isagu wuxuu isticmaalaa hadduu muttafaqun calayhi yidhaahdo waa istilaax u gaaree waxaa isku waafaqay 3 shiikh imaam axmed iyo imaam bukhaari iyo imaam muslim saddexdaasi markay isku waafaqaanoo imaam axmed la socdo ayuu muttafaqun calayhi yidhaahdaa haddaan markaa imaam axmed la socon isagu uma isticmaalo muttafaqun calayhi waa istilaax khaasoo yuxfadu lahu isagaa loo xafidaya culammada kale sida kaley qabaan wa fii riwaayatin limuslim
riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo limuslimin muslim u sugnaatay waxaa loo jeedaa muslim la gaar noqdo bukhaari kala gaar yahay lallahu ashaddu faraxan allah baa ka darraansho badan faraxan xagga faraxa bitawbati cabdihi uu ku farxaayo addoonkiisa toobadda uu toobad keeno uu ku farxayo xiina yatuubu goortuu toobad keenaayo addoonku ilayhi ay ilallah xagga ilaahay u toobad keenaayo toobadda ikhlaas ku samaynaayo ilaada markaa lagu gudbiyey culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa in macno ikhlaasna ku jiro oo towbadda allah loo saafi yeelayo min axadikum midkiin buu ka markaa farax badan yahay kaana calaa raaxilatihi axadkaasi xaal kaana markaa uu ahaan jiray calaa raaxilatihi daabaddiisa mid markaa ku dul sugan uu ahaan jiray biardin dhul gudihii daabaddiisa mid ku kor sugan ahaan jiray dhul gudihii biardin falaatin dhul lama degaan oo cidla ah fanfalatat minhu way ka baxsatay daabaddii waxay ka baxsatay wa calayha طacaamuhu wa sharaabuhu walxaal calayha korkeeda uu ku sugan yahay طacaamuhu cuntadiisiiyo wa sharaabuhu wuxuu cabbaayey ay ku sugan yihiin fa ayisa waa quustay minhaa raaxiladii ayuu ka quustay daabaddiisii ayuu ka quustay rakuubka u ahayd yacni markaas sahayduna u saarnayd fa ataa shajaratan geed buu yimi markuu daalay wuxuu raarraadiyeba ayuu geed yimi fadajaca fii dilliha wuxuu jiifsaday geedkaa hadhkiisii ayuu jiifsaday wuxuu geedka hadhkiisa jiifsaday waqad ayisa walxaal qad ayisa uu quustay min raaxilatihi daabaddiisa inuu helo uu ka quustay fa baynamaa huwa kadalik wakhti gudihiisoo ninkaasi uu sidaa ku sugan yahay id huwa biha qaa'ima cindah id huwa biha waaba isagii oo yacni markaa daabadda helitaankeedii ku sugan daabaddii helay qaa'imatan xaalay taagan tahay cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay id waxaa hadda loo isticmaalayaa macna alfujaa'iya oo id miyaa fujaa'iye loo isticmaalaa haa haddii bayna ama baynamaa ay ka horrayso macnaha fujaa'iye waa loo fasiraa haddana baynamaa baa ka horraysa haddii labadaa mid aynay ka horraynin macna alfujaa'iya uma timaaddo macna fujaa'iya uma timaaddo fujaa'igu waxa weeye waa macno kedise ah isla markiiba waxaa ku kediyey isagoo daabaddii marka waxa weeye ay ku ag sugantay fa baynamaa ay fii zamanin wakhti gudihiiyo huwa kadaalika uu sidaa yahay baynamaa waxay noqonaysaa wakhti gudihii in laga tilmaamaayo id huwa biha waaba isagii oo daabaddii ku sugan bimacnaa daabaddii ay ag joogto qaa'imatan xaalay taagan tahay cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay fa akhada waa qabsaday bikhitaamihaa hoggaankeedii buu qabsaday uma qaala dabeedna wuxuu yidhi min shiddati alfarax farxadda daran ee haleeshay daraaddeed wuxuu la yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow anta cabdii adigu addoonkaygii baa tahay buu yidhi wa ana rabbuka anna rabbigaa baan ahay buu yidhi wuxuu doonayay inuu yidhaahdo anta rabbii wa ana cabduk laakiin faraxii baa ka asadihiyey faraxii baa ka qaalib noqday markaasaa siduu doonaayey mooye sida lidka ku aba hadalkii uga dhacay allaahumma allaahow anta cabdii buu yidhi ninkii adigu addoonkaygii baa tahay wa ana rabbuka anna rabbigaa baan ahay farxadda daraaddeeda ka qaalib noqotay buu la halmaamay oo waxaanu ku talagelin uu ku hadlay akhta'a min shiddati alfarax akhta'a waa gefay ama waa halmaamay min shiddati alfarax wuxuu la gefay ama la halmaamay farxadda daran daraaddeed buu la halmaamay istinaaf bayaaniyo weeyo waxay markaa ka dhigan tahay su'aali inay qarsoon tahay laba istinaaf baa jira istinaaf naxwi iyo istinaaf bayaani istinaafka naxwigaa waxaa loo isticmaalaa kan wax laga hor sheegine hadalka lagu bilaabo ayaa waxaa la yidhahdaa waa istinaaf naxwi istinaaf bayaaniyana waxaa loo isticmaalaa su'aal qarsoon hadalka lagaga jawaabo waxaa la yidhahdaa waa istinaaf bayaaniya baa la yidhahdaa marka ka'annahu in la yidhi sababulkhata'i waa maxay markaasaa la akhta'a min shiddati alfarax wuxuu la khata'ay oo la halmaamay farxadda daran daraaddeed buu la halmaamay xadiidkani waxau inoo sheegayaa
in nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay allah inuu ku farxo toobadda addoonkiisu u toobad keeno allah inuu aad iyo aad ugu farxo halkaana waxaa laga qaadanayaa allah toobadda waa jecel yahay in addoonku toobad keeno dembi kastaba ha la yimaadee allah waa jecel yahay waxaa kaloo ka imanaysa sifatulfarax in allah loo sugo sifada faraxa ilaahayna lama mid aha faraxa addoommada lama mid aha farax addoon farxo dee waxa ugu farxad badan addoonka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam safar buu ahaa qariib buu ahaa beled buu marayaa aan dhulkiisii ahayn meel bahgooyaa oo cidla ah oo goobaale gabalkuugu dhacoo kale iska ah ayuunbuu markaysagaa marayey sahayduu sitay iyo biyuhu sitay iyo wixii oo dhan iyo daabaddiiba waa waayey waa raadiyo waa doonay waa ka quustay meel ma gaadhi karo wuxuu markaa cuno ma haysto wuxuu cabbo ma haysto deegaan meesha ka dhowi ma jirto marka waxau isleeyahay waad dhimanaysaa isagoo istislaam xaaladdiisu tahay oo isleeyahay goortay geeridu kuu timaaddo uun markaa arag ile meel ma gaadhi kartide tabcaan weeyi iyuu geed hoostii iska jiibsaday ma filanayo nolol wuxuu isleeyahay waad dhimanaysa siduu caynkii u ahaa ayuunbaa uu halkii isaga jiifay ayuunbuu indhaha kala qaado wuxuu arkay daabaddiisii oo dul taagan oo sahaydiisii biyihiisii iyo raashinkiisina u saaran yihiin yaa farxad intee la eg buu farxayaa rajadii nololeed baa markan soo gelaysa markii hore quus buu iska ahaa iyadana inuu helo waa ka quustay meeluu rajaynayo inuu gaadhi karaana ma jirto meeshuna waa cidla yaa xaaladda caynkaasa farxadda uu farxay waxay noqotay farxad aad iyo aad u daran dee addoon farxadda uu farxo waxay noqonaysaa nooca ugu daran farxadda ee ugu miisaanka badan haddana waxaa laynoo sheegay faraxa allah ku farxo towbadda addoonkiisu u toobad keenaa taas inay ka daran tahay halkaa waxaa ka soo baxaysaa faraxa ilaahay lama mid aha faraxa addoommada laysa ka milihi shay waxaa lagu dareerinayaa qaacidada guud oo ah allah wax shabbahaa ma jiraan marka sifaadka ilaahay sifaad la midii ma jiro makhluuq shabbahaa ma jiro isaguna makhluuq uma eka oo makhluuq ma shabbaho faraxa iyo faraxa lafdigu inuu iswaafaqaa mar haddii tashbiiha la nafyinayo tashbiihi noqon mayso firaqa qaarkood sida marka ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo yacni muctasiladoo kaba sii shishaysa iyagu waxay leeyihiin sifada farax haddii ilaahay lagu itlaaqo ama raalli ahaansho lagu itlaaqo oo lagu sheego lagu sifeeyo oo la yidhahdo waa raalli noqdaa ama waa cadhoodaa ama waa farxaa ama wejaa u sugan ama gacmaa u sugan iyo sifaadka la midkaa waxay odhanayaan sugista loo sugaa caynu tashbiihi ah inaad ka daba keentaa yacni waxa weeye tashbiih ma aha oo kuwa khalqiga lama mid aha waxay noqonaysaa un min baabi tanaaqud isburin bay noqonaysaa ee mid ka badbaadinaysa qofka tashbiihi maaha yaa muctasila qaacida mutlaqay ka qabaan oo sifaadkao dhan bay dee halkaa wada marinayaan ilaa kuwa ashaaciriya maaturiidiya sugayaan oo ashaacirada maaturiidiyadaba iyo salafkii intaba waxay ku magacaabayaan inay markaa yihiin mushabbiho bimujarad inay sifaadka sugeen daraaddeed bay saa ugu magacaabayaan yaa oo waxay leeyihiin inaad markaa sifaadkan allah u sugtaan waa caynu tashbiihi oo aad tidhaahdo xayaataa ilaahay u sugnaatay ama cilmi baa u sugnaaday sifo cilmi la yidhaahdo ama sifo xayaata la yidhahdo ama sifo kalaam la yidhaahdo ama sifo samci la ama sifo basar la yidhaahdo qolyaha ashaacirada iyo maaturidiyada waxay leeyihin maya ha la kala saaro sifaadko kuwa caqligaa waajibiyey yaa oo iminka samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada sifaadka caynkaasa waxay yidhahdeen in allah loo sugo waxay noqonaysaa waxa weeye qaar caqligu waajibinayo waayo madhnaanshaha allah ka madhnaadaa waxay noqonaysaa nuqsaan ayay noqonaysaa bay yidhahdeen marka daruuri waxa in rabbi loo sugo laakiin inta kale waa saa u sheegteen bay yidhahdeen sifaadkan kale marka haddii la sugo iyadu tashbiih bay noqonaysaa muctasila kamay garaysan waxay leeyihiin kuwaa sugteen iyo kuwaa diiddeen ee markaa nagu raacdeen ta'wiilkooda waxba isma dooriyaan ee tanaaqudka iska daayo ama markaa tansiiha aanu hayno soo wada raaca yaa ama tashbiiha iska wada qaata halkaasay ka saareen qolyahan markaa ashaaciriya maaturidiya waxay leeyihiin maya sifaadkan iyagu markaa tashbiih bay ku moodsiinayaa wa kulla nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warum tansiiha laqaani waa ka odhanaaya
nas kastoo ku moodsiiyaa tashbiih ku moodsiiyaa ama ta'wiili ama tafwiidi oo tafwiid mutlaqa ku samee ama ta'wiiliyo daahirkiisa ka leexi wa rum tansiihna u qasad salafkii siday qabeen waxay tahay sifaadka ku soo arooray sunnada iyo qur'aanka ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada sifaadka ku soo arooray in sidooda loo sugo dhammaantood sida nasku u sugay in loo sugo mar labaadkana tashbiiha laga nafiyo loo diido kayfka iyo qaabkana laga gaabsado lafdan wa macnanna la sugo daahirkeedana aan laga leexin daahirkeeda aynu sheegaynaana waa daahir ilaahay u laa'iqa ee ta makhluuqa ku sugan baa xaqiiqatan ugu sugan ma aha saas aawadee imaamu tirmidi culammadii ahlu sunnuu ka mid ahaa kitaabka weyn ee jaamicaana waa leeyahay aljaamic litirmidi wuxuu ku caanbaxay in sunan la yidhaahdee laakiin sida saxiixa jaamici weeyaane jaamicana waxaa la yidhahdaa kitaabka koobsaday 8 nooc kitaabka koobsadaa la yidhahdaa jaamic aljaamicu aladii xawaa manaaqiba wa sunanan wa fitanan wa adaba yacni kitaabka koobsaday kitaab manaaqib la yidhahdo waa inuu leeyahay waa inuu markaas sunan leeyahay waa qayb labaad waa inuu fitan leeyahay kitaabulfitan waa qayb saddexaad waa inuu kitaabuladab leeyahay kitaabuladab waa inuu leeyahay tafsiiran alriqaaqa waalcaqaa'ida waa inuu kitaabu tafsiir leeyahay waa inuu qayb caqaa'ida leeyahay waa inuu markaa leeyahay riqaaq yacni waxa weye alraqaa'iq ama alriqaaq yacni qayb ku saabsan raqaa'iqda waa inuu leeyahay kitaabu raqaa'iq wasaaminu alaxkaamu khud nilta alhudaa waa inuu leeyahay marka axkaamtii fiqiga ahayd ee marka cibaadaadka iyo mucaamalaadkiina waa inuu leeyahay alaxkaam alcamaliya 8 nooc kitaabka koobsada waxaa la yidhahdaa aljaamic baa la yidhahdaa 8 nooc waa koobsada jaamicu tirmidi baa la yidhaahdaa laakiin wuxuu ku caanbaxay sunan in la yidhaahdo tabacaadka qaarkood ama badankoodana lagu taabacay laakiin qaar baa sidii asalka ahayd ee saxda ahayd jaamic lagu qoray kitaabkiisaas jaamica ah ama sunanka sidaad u taqaanba kitaabu zakaa markuu joogo markuu xadiiskii marayo ku saabsanaa yacni addoonku sadaqaduu bixiyo taqabbalaha allaahu biyamiinih fa yurabbiiha kamaa yurabbii axadukum fuluwahu xadiiskaa markuu sharxayo wuxuu odhanayaa isxaaq ibnu raahuuya oo a'immadii salafka ka mid ahaa wakhtiyada qaarkoodna imaamu shaafici markaa munaadarada ay dhex mareen saaxibulimaam axmedna ahaa ayuu wuxuu ka soo naqlinaya inuu tashbiihu ma aha in la yidhaahdo ilaahay yad baa u sugnaatay ama samci baa u sugnaaday ee haddaad tidhaahdo yadun ka yadii iyo samcun ka samcii waa tashbiih laakiin inaad tidhaahdo yad baa u sugnaatay ama samci baa u sugnaaday oo aanad markaa odhan ka yadii odhan tashbiih maaha hadalkaasi waa hadal aad u miisaan badan wuxuuna kala caddaynayaa dariiqii salafka iyo dariiqa markaa dadka lumay wuxuu tilmaamayaa tashbiihan wax in markay noqonaysaa inay tahay marka la yidhaahdo sifadani sifada makhluuqay la mid tahay ama sifadayday la mid tahay markaasay tashbiih noqonaysaa laakiin lafdiga sifada in la sugo oo la yidhaahdo ta makhluuqa lama mid aha inaynay tashbiih ahayn a'immadii salafku dariiqay mareen bay ku tusinaysaa saarat mushariqatan wa sirta mughariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi qaacidadaasaa lagu wada dareerinayaa dhammaan oo waxaa la odhanayaa sifadii waa la sugayaa tashbiihana waa laga nafyinayaa oo mid makhluuq bay la mid tahay la odhan maayo way ka duwantaa la odhanayaa kayfkiiyo qaabkana waa laga gaabsanayaa taasaa waxay tahay markaa siday salafku ka mareen sifaadka markaa siday ka mareen weeye sifaadkana baab keliya weeyo isku meel baa la marinayaa alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaadka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanayaa oo in la yidhahdo qaar waa la sugayaa oo tashbiiha laga nafyinayaa oo itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq asmaadu inay iswaafaqaan sida waxa weeye samci iyo samci sida basar iyo basar sida waxa weeye markaa yad iyo yad sida weji iyo weji sida rida iyo rida inuu lafdigu iswaafaqaa ma keensanayo xaqaa'iqdu inay iswaafaqsantahay keensan mayso marka waxa weeye sida xaqii waa sidaas yadaa weeye marka waa in sifaadka dhammaan sida allah loogu sifeeya tashbiihana laga nafiya kayfka iyo qaabkana laga gaabsada xadiisku wuxuu tilmaamayaa allah aad inuugu farxo toobadda addoonku u toobad keeno marka toobaddii aad buu u jecel yahay faraxa markaa shakhsigaasi farxana
allah farxu farxaa ka daran oo ku farxaayo toobadda addoonkiisu u toobad keenaayo saas aawadeed toobaddiiyo istikfaarka waa in lagu dadaalaa si kastoo qofku dembi ugu dhacayna naxariista ilahay waa inaanu ka quusan waa inaan is odhan waxba laga aqbali maayo waxaad samaysay wax laga aqbalayaa ma jiro waa inaan is odhan waa inuu marka waxa weeye naxariista ilaahay rajeeyaa dunuubtuna si kastaba ha u badatee ilaahay ciddii ka toobad keenta waa ka toobad aqbalaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica allah wuxuu yidhi addoommadaydiiow nafahooda ku israafayow ha ka quusannina naxariista allah ha ka quusannina yaa si kastoo bimacnaa dembiye badan a ula timaadeen quus ha la imanina naxariista ilaahay a ka quusanaysaan kollayba waxba laga aqbali maayo naar baad gelaysaa is odhan kii toobadkeena allah waa ka toobad aqbalaa ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa haddaad kullu dunuub la wada timaaddo dembiyada dhammaantood oo xilli towbaddu furantay aad toobad keento tawba saxiixa allah toobadda waa ka aqbalaya mar la odhanayo dembiyadu hadday xad kaa gaadhaan towbad la aqbali maayo ma jirto ina allaha yakfiru adunuuba jamiican kullu dunuub haddaad la timaaddo oo xilli uun towbaddu furan tahay aad toobad keento shuruuddii towbaddana aad dhammaystirto allah waa kaa aqbalayaa towbadda ee naxariista ilaahay ka quusan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa safarka marka la safraayo in sahay la qaataa inay fiican tahay tawakulkana ayna ka hor imanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa khata'u inuu yahay markaa shay la cafiyey oo la dhaafay inuu yahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa qaala allahu qad facaltu ilaahay baa wuxuu ihi waa yeela oo bimacnaa wax khata' iyo nisyaana u qaban maayo qaala allahu qad facaltu walaa junaaxa calaykum fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum nusuuso badan baa jira waxaa laga qaadanayaa shayga kufriga iyo gaalnimada ah qofku hadduu khata'an ugu hadlo oo qasad aanu uga dhicin shay cafisaan loo qabanay inuu yahay ninkani hadalku ku hadlay waa hadal kufri ah allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk waa kufrun billaah hadalkani ma ku gaaloobay mise kuma gaaloobin maya kuma gaaloobin maxaa caddaynaya dee waxaa caddaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi akhta'a min shiddati alfarax taasi waxay caddaynaysaa inaannu dembi ku qabin ou yahay markaa mid laga cafiyey khata'una cudurdaar baabkan inuu u noqonayo ayaa laga qaadanaya inuu khata'u cudurdaar u noqonayaa laga qaadanaya marka halmaankaa qofku uu halmaamo hadduu shay kufriga ku halmaamo loo qaban maayo shiddatulfarax keliyana kuma xidhnee hadduu khata'u siyaalo kale ku yimaado lafteeda yaa waxa weeye oo khata'un uu yahay wuxuu noqonayaa manaadka xukunka ku xidhan yahay waa khata'a ina allaha wadaca can ummati alkhata'a waalnisyaana wama stukrihu calayh khata'an ummaddan waa laga dhaafa waa mid laga cafiyey saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk